barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa farqiga ama kala duwanaanshaha u dhexeeya magacyada kala ah Israa'iili, Yuhuudi iyo Sahyuuni oo afka Ingiriisiga lagu yaqaan Zion ama Zionism. inta badan waxaad moodaa dadka caadiga ah iyo saxaafadaba inaysan kala saari karin magacyada aan kor ku soo xusay malaha iyagoo u qaatay inay isku macno yihiin. haddaba waxaan isku dayi doonaa inaan sharaxaad kooban idinka siiyo aniga oo huba inay saddexdaasi magac ay kala macno iyo kala aragti duwan yihiin. ugu horeyntii aan ka hadalno magaca Israa'iili. Israa'iil waa qof magacii waana magaca Yacquub calayhi salaam. markaad eegto quraanka kariimka ah waxaa lagu xusay qof magaciisu uu yahay Israa'iil waxaana la isku waafaqsan yahay inuu yahay qofkaasi Yacquub calayhi salaam. Yacquub ayaa dhalay 12 caruur ah waxaana ka mid ah Nabi Yuusuf calayhi salaam. haddaba magaca Israa'iil waa mid qowmiyadeed ma ahan mid diini ah. dhammaan yuhuudda oo dhan ma ahan Israa'iiliyiin, laakiin warbaahinta reer galbeedka ayaa dadka waxay ugu celceliyeen magaca Israa'iil si loo ictiraafo inay yihiin qoom ku abtirsada Yacquub calayhi salaam. waxaad dhihi doontaan la imaaw aayad ama xadiis caddaynaya arrintaasi. waa tanaa oo dhagaha u fur. eeg aayadda 4aad ee suuradda albaqara wuxuu alla weyne ku yidhi yaa banii israa'iila اذkuruu nicmatiya allatii an'amtu calaykum وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ilmihii Israa'iilow xasuusta nimcadaydii aan idin galay oo oofiya xilalkiina iyo waajibaadka idin saaran axdigii inoo dhexeeyay idinka iyo aniga oo Allah ah. markaas ayaan oofinayaa oo ah xaqa isaaran oo balanta aad igu leedihiin hana ka baqina cid aan aniga ahayn. haddaba aayaddaasi waxaad ka dhadhansanaysaa in magaca Israa'iil uusan ahayn waxay aaminsan yihiin dadka Yuhuudda ah. magaca Israa'iil waxaa quraanka lagu xusay marar badan iyada oo loogu yeerayo reer bani Israa'iil oo la macno ah ilmihii Yacquubow. waa maxay macnaha Yuhuudi? yuhuudi waa magac lagu tilmaamo qofku rumaysan diinta yuhuudiga, waana magac loogu yeero qof waliba oo ictiqaadsan ama rumaysan diinta yuhuudda. yuhuudda waxay rumaysan yihiin ama ay raacsan yihiin Nabi Muuse calayhi salaam ama diinta Nabi Muuse calayhi salaam. kutubtooda waa Towraad iyo Talmuud. laakiin waxaa jira qalad weyn oo warbaahinta ay sheegaan iyagoo yidhaah sahnuuniyiinta qabsaday Falastiin waxaa horay ugu noolaa dad aaminsanaa diinta yuhuudda, waxayna aad ugu soo horjeedaan xuquuq qabsashada dhulka Falastiin ay ku kaceen sahnuuniyiinta. haddaba magaca Yuhuudi iyo Israa'iil farqi caankee ah ayaa u dhexeeya. aan dib ugu laabanno markii yuhuudda ay sheegteen in Nabi Ibraahim calayhi salaam uu yahay nin aaminsan diinta yuhuudda, halka nasraaniyiinta ama waxa maanta loo yaqaan Kirishtiyaanka ay sheegteen in Nabi Ibraahim uu ahaa nasraani. isqabqabsigoodii kadib wuxuu alla weyne caddeeyey in labadaasi diin uu ictiqaadsanayn Ibraahim calayhi salaam uuna yahay muslim. eeg aayadda 67 ee suuradda Al-Cimraan wuxuu alla weyne yidhi maa kaana Ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min al-mushrikiin. Ibraahim ma ahayn yuhuudi iyo kirishtaan toona, laakiin wuxuu ahaa toosane muslim ah oo xaniif ah oo raacsan tawxiidka islaamka, oo macnaheedu tahay inaadan caabudin waxaanan alle ahayn. kamana mid ahayn Ibraahim mushrikiinta oo macnaheedu tahay lama wadaajin cibaadada alle cidaanan alle ahayn. haddaba aayaddaasi waxay ku xaqiijinaysaa in magaca yuhuudi ay tahay wax la ictiqaadsan yahay, halka Israa'iilna ay tahay shakhsi magaciisa. waa maxay magaca Sahyuuni ama Englishka lagu yiraahdo Zion ama Zionism oo afka Hebruuga ama Cibriga lagu yiraahdo Tisayonut? haddaba kooxdan ayaa ah koox ayidsan qadiyadda in ay helaan dhul ay dejiyaan dadka Israa'iiliyiinta sheegta,
dhammaan dadka yuhuudda oo dhan ma ahan dad sahyuuniyiin ah, halka sidaasi oo kale dhammaan sahyuuniyiinta aysan ahayn yuhuud. haddaba magaca sahyuuni ama Zionism waa koox siyaasadeed oo u abaabulan inay helaan dowlad ictiqaadsan diinta yuhuudda oo keliya, ayagoo go'aansaday inay degaan Falastiin, waxayna dadka yuhuudda ah ku dhiirigeliyaan inay u soo hijroodaan dhulka ay xoogga ku qabsadeen oo Falastiin ah. haddaba markaan ku leeyahay yuhuud, waxaa soo geli kara qof waliba oo diintooda qaata: Soomaali, Carab, Ameerikaan, Yurubiyan, dhammaan jinsiyadaha dunida ka jira oo dhan. kooxdan ayaa la aasaasay 1897 laguna aasaasay dalkaasi Switzerland, gaar ahaan Basel, waxaana madax u ahaa nin wariye oo magaciisu u ahaa Theodor Herzl. ninkan lagu magacaabo Theodor Herzl ayaa qoray buug magaciisu u ahaa Darjudansaad, oo macnaheedu tahay dowladdii Sahnuuniyiinta ama dowladdii Mooryaanta, halka sidaasi oo kale loo yaqaan dowladdii Yuhuudda. sahyuuniyiinta kooxda loo yaqaan ayaa halkaasi waxaa soo dejiyey ra'iisul wasaarihii Ingiriiska oo magaciisu u ahaa James Balfour, wuxuuna qoray warqaddii ku caanbaxday warqaddii wacadkii Balfour ama Balfour Declaration. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeennii aan kaga hadlaynay farqiga u dhexeeya Israa'iili, Yuhuudi iyo Zionism ama sahyuuniyiinta. Israa'iil waa magaca Yacquub oo macnaheedu tahay ilmihii Israa'iil. Yuhuudi waa qofka aaminsan diinta Yuhuudda. Zionism ama sahyuuniyiinta waa koox Mooryaan ah oo dhulboob u socota, doonaysa inay qaataan dhulka dadka reer Falastiin. Yacquub afka Ingiriiska waxaa loogu dhawaaqaa Jacob, sidaasi oo kale afka Giriigga waxaa loogu dhawaaqaa Lokabus. Hibruuga ama Cibriga dadka Yuhuudda ay maanta ku hadlaan waxaa loogu dhawaaqaa Yacqoob ama Yacqoof.